toban iyo 20 minid ilaa 12 minid baan waqti siinaya marka inta anigu aan doonayaa inaan ilaahay waxa weeye mowqif adag baynu maanta hadii Soomaaliland hay marayna 10 sano ayaynu guri dhisay ilaahay waa inala qabtay meel wanaagsan ayaynu inoo maraysaa dhismi maanta saqafkii saaristiisii ay qura ayaa inoo hadhay inaynu qaran iyo dawlad iyo dal iyo dad walaalaha nabad iyo istiqraar iyo ku wada nool inaynu dhisno waynu soo dhamaynay maanta istiqraarka ayaa inoo hadhay dastuur baynu fulinay oo aynu maxay istiftaa u qaadnay 97 boqolkiiba 97 ayaa proof gareeyay oo maxay ansixiyay dastuurka ansixiyay waa ogtihiin nin kastaaba beena ka sheego nin kastaaba maxay leeyahay wuxuu doona ha yiraahdo waa ogtihiin inuu istiftaagaasi ku dhacay amaan iyo nazaahad iyo maxay hayday uu ku dhacay oo aan wax ku shubasho ah la oran jiray ama maxay hayday been abuurigi aanu ku jirin ay raqabadii shacbiga oo sawirani ka soo baxday meesha 97 boqolkiiba 97 baa dadkii reer Soomaaliland doorteen oo ansixiyay inay qaran noqdaan oo ay maanta maxay hayday ahaadaan dal dastuur leh oo sharci asaasi ku wada dhaqan oo mid walba xornimadoodii iyo madax banaanidoodii haday xisbi yihiin iyo haday shakhsi yihiinba iyo haday qowmiyad yihiin iyo haday koox shaqaale ah yihiinba xorriyadoodii ay ku qoran tahay meesha ay tahay barigeeyo maxay hayday Maxamed Siyaad in laga dastuurkii aynu ku go'aan ahayn dastuur wanaagsan dastuur Talyaani sameeyay laakiin cala laga hadana dastuur qaran ku dhisnaabo maalintii la qaaday wali waan laabay waxay u qabeen dadkii barigaas 20 sano horteed waxay u qabeen dastuurka la laabay in maxay hayday dawladii maalinta dhisnayd iyo madaxweynihii maalinta dhisnaa in laga laabay in la laabay bay u qaaday in iyaga xorriyadoodii iyo madax banaanidoodii iyo wixii ay asaaskii qarannimadooda in la laabay may dhaadino mini ogeyn damada 20 sano dabadeed shacbigeeni waxay la tahay inuu fahmayo wixii soo gaaray iyo wixii la soo mariyay inay og yihiin maanta dastuur wuxuu yahay dastuur ma aha warqad nin qortay waan ka gaabsaday anigu 9 bilood ee lagaga hadlaayay baarlamaanka iyo guurtida lagaga hadlaayay ee laga dhabaafilay in eray qora ku darsado oo la yiraahdo shaad buu inaciga tolanaya wax badan oo aan u arkayay markaa inaanay haboonayn baa lagu qoray dastuur eray kama oran laga daayo iyo lagu daratoona mid ku oran waxa inta ka dadaalay inaanay dadalsan shacbiga Soomaaliland inaanu dadalsan aynu oo kale mar hawl yara sida maxay hayday looga doodo ama looga maxay loo aqriyaa hawl yara way arrin weeye dastuurkii ka bacdi oo asaaskii sharcinimada iyo jiritaanka Soomaaliland asaas u ahaa ka ku xiga ahamiyadiisa isaguna leeyahay waxa weeye sharcigan maanta aynu hayno oo qeexaya sidii shacbiga Soomaaliland ay u dooran lahaayeen madaxdooda iyagu dooran lahaayeen wuxuu qeexay dastuurku in ay shacbiga Soomaaliland uu yahay meesha ay ku degan tahay ee ay ku rasmi ku tahay siyaadada iyo madax banaanida iyo xorriyada dalkan Soomaaliland marka isaga shacbigaas ayaa cidii madax laga dhigayo madax ka dhigi karta cidii loo diidi karta wixii sharci noqonayana iyaga ayaa maxay haydaa saxan kara marka qaynuunkan maanta aynu hayno ayaa ah xukunkii labaad dastuurkii marka laga yimaado xukunkii labaad ee ay ku taagnayd jiritaanka Soomaaliland ay ku taagnayd ee shacbiga Soomaaliland ay gacanta u geli lahayd siyaadada iyo xornimada iyo jiritaanka Soomaaliland marka maanta sharaf weyn bay ii tahay inaan raggan horteeda wax kastaba hawliya ka soo gaadhay inaan ku saxeexo
وأي شرعي رسمي يكون نقطه أي نونكاس دور شوينكا سوماليلاند حوجا قبل أبا كتيرة وأي بار لبضك ولا إسلاك كرتين إندب لقى عصفية دادوا لبا محاي هيدي حياتشب وحواء وقفصنا waxaa jira dad aan maxay hayday dastuur balahayn kolba ingiriis baa kamid ah dawladaha kuwa waaweyn ayaa kamid dastuur qoran mar kolba wixii ay xeer ka dhigtaan shacbiga isla garto iyo baarlamaankoodu ayaa maxay hayday u dastuur marka laba arrin oo yar baa maxay hayday yar yaa oranayna waaweyn ayay labada gol isla garteen inay maanta qabyo ahaadaan oo dib ay uga fiirsadaan fadhigooda dambe ay yimaadaan laakiin maadaama ayna soo guda galeen doorashooyinkii dawladaha hoose waxay isla garteen in horto inta maanta la isla ogol yahay in hore laga ansixiyo oo ay sameeyaan sidaasaan aniguna la gartay odaynimadu yani maxay ahaydee iyo waayeelnimadu waxay ku jirtaa maxay ahaydee ونير صعده وحنا مدبي كمان ونير صعده وحنا أرنكاس إن وح لبضع قطب ير ليلي هينو عيد نادي هينو عيد نادي محي هيدي أنا ولا قرتي تبى على قدر ما يدونا يجنا وحلي سكوا هذا يوم عليها ما كمان تشرف بان وقادنا ياينا رجل هرتوده هي صحافة حرطة سومالي لان أي وحكي سوي نلاقي تمام هذا لو وقف عنا حرني ماذا بحاي نلاقي سومين هرجع يبحث حري مركب محاي هي صحافة دوسيرة وصحافة مركب محاي هذي عندي وحصورنا يساوي وعكاش بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ka arkaa telefishinka ajnabiga dadka qaranka wax ku saxaa way bixiya laakiin kaliya mid ugu yar weyn nasiib ma iyo iska haysanaya waa kaas marka qolada saxaafada waxaan leenahay maxay hayday waxa laga fadhiyaa himalo jamhuuriya himalo si loo kala weeyahay jamhuuriya maanteed himalo hay Ahmed